22 bishii aynu soo dhaafnay ee Juun goor barqa ah oo saacadu ay tahay 11:00 barkii subaxnimo waxaa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ka soo degtay diyaarad siday hub ay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ka soo iibiyeen dalka Djibouti sida ay noo sheegayaan warar aynu ka helnay hay'ado iyo ilo lagu kalsoon yahay. hubkan waxaa siday diyaarad si gaara loo soo kireystay oo ka timid dalka Djibouti waxaana la sheegay in loo leexiyay qayb ka mid ah garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo ay maamulaan ciidamada la dagaalanka argagixisada Soomaaliya ee Alpha Group. waxaa la sheegay in hubkaasi laga dejiyay diyaaradda muddo yar kadibna garoonka ay ka qaadeen baabuur ay leedahay hay'adda nabad sugidda Soomaaliya. hubkan ayaa intiisa badan ka kooban qoryaha AK47 oo la sheegay tiradoodu inay gaadhayaan 300 oo qori iyo bastoolado iyaguna gaadhaya 300 rasaas iyo qalab kale oo military. warar xogogaal ah oo lagu kalsoon yahay waxay ii sheegeen in hubkan laga soo iibiyey Djibouti qaab suuq madow ah waxaana la ii sheegay in soo iibinta hubkan uu hawsheeda qaabilsanaa taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir Saadiq Cumar oo ku magac dheer Saadiq John. hubkan waxaa la ii sheegay in loogu talagalay ciidamada lagu magacaabo ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho oo tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1500 oo askari kuwaas oo la ii sheegay in maamulkoodu inta badan uu gacanta ugu jiro taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir Saadiq John. dawladda Soomaaliya waxaa loo ogol yahay inay soo iibsato hubka noocan ah. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bishii Maarso ee sanadkii 2013 qayb ahaan qaaday cunaqabatayntii saarneyd Soomaaliya waxaana tallaabadaasi dawladda ay u ogolaanaysay inay soo iibsato hubka fudud. hase yeeshee xayiraadda qayb ahaan la qaaday waxaa ku xirneyd shuruud oo ah in dawladda Soomaaliya iyo ciddii kale gacan siinaysaba ay ku wargeliyaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu yaraan 5 maalmood ka hor inta aan la keenin hubka. waxaa laga doonayaa oo kale inay golaha ammaanka u gudbiyaan faahfaahinta hubkaasi, tiradiisa, meesha la geeyey iyo dejintiisa. ilo xogogaal ah oo la socda nooca cunaqabataynta saaran Soomaaliya waxay ii sheegeen in dawladda Soomaaliya tan Djibouti midkoodna aanay ku wargelin golaha ammaanka ee qaramada midoobay hubkan soo degay 22 bishii Juun. arrintaasina waxaan wax ka weydiiyey Matt Bryden oo ah agaasimaha hay'adda cilmi baarista Sahan Research horeyna madax uga soo noqday guddiga cunaqabataynta Soomaaliya ee Eritrea ee qaramada midoobay. They need only to notify the UN Security Council, I believe 5 days in advance. So there is no restriction as long as those do not include the kinds of heavy weapons, anti-aircraft, anti-tank weapons that are waxa uu yidhi waxay u baahan yihiin in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku wargeliyaan 5 maalmood ka hor. ma jirta ayuu yidhi xayiraad saaran hubkaasi yaryar haddii aysan ku jirin hubka culus sida lidka diyaaradaha iyo lidka taangiyada oo mamnuuc ah sida uu dhigayo qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay. waxaase waajibka adag ee la socdaa uu yahay ayuu yidhi in dawladdu ay ku wargeliso qaramada midoobay ciidanka helaya hubkaasi sida loo kaydinayo iyo sida loo maamulayo, goobta lagu isticmaalayo, ayna warbixin joogto ah ka bixiso 6 biloodba hal mar. sida ay sheegeen saraakiil xogogaal ah caqabad kale oo ka timid hubkan ayaa ah qaabka looga bixiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo goobta lagu xareeyey. saraakiil ka gaabsaday in magacooda la sheego waxay ii sheegeen in aan lala socodsiinin saraakiisha ugu sarreysay laamaha amniga ee dawladda iyo in hubka laga bixiyey garoonka kadibna la geeyey kayd aan hayn kuwii horey loogu yaqaanay dawladda Soomaaliya. caqabad kale oo ka soo baxday hubkan ayaa ah qaabka soo iibinta. waxaa warar lagu kalsoon yahay ay ii sheegeen in hubkan asal ahaan uusan ahayn mid ay lahayd dawladda Djibouti oo ka soo baxay kaydka ciidamada ee dawladdaasi. waxaa wararka xogaalka ay ii sheegeen in hubkan goor hore lagu qabtay badda cas ayna qabteen ciidamada xeebaha ee Djibouti waxaana la aaminsan yahay inuu u socday mucaaradka Xuutiyiinta ee dalka Yemen. hubkaasi waxaa kadib la wareegay laamaha amniga ee Djibouti. wararka qaar ayaa ku doodaya inuusan hubkani ahayn mid sharciyeysan oo weli go'aan ay maxkamadi ka gaadhay. waxaa isweydiin u baahan dokumenti noocee ah ayaa haddaba dawladda Soomaaliya ay ku soo iibsatay hubkan. Matt Bryden waa agaasimaha hay'adda cilmi baarista ee Sahan Research. That is possible. It can be legal. The question is one of due process. International law is somewhat ambiguous on what happens to waxa uu yidhi waa suurtagal oo sharci ayuu noqon karaa laakiin su-aashu waxay tahay mid ku saabsan raacista sharciga caalamiga ah ayuu yidhi si cad uma qeexayo hantida sharci darrada ah ee lagu qabto biyaha caalamka sida hubka iyo daroogada. laakiin mabda'a asaasiga ayaa ah in haddii agab sharci darraha lagu qabto badda in waddanka qabtaa uu go'aan ka gaadho sida loo isticmaalayo iyadoo la sii marayo maxkamadaha waddankaasi ayaana go'aan ka gaadhi kara cidda iska leh in la celinayo iyo in loo wareejinayo ama laga iibinayo waddan kale. su-aashu waxay tahay ayuu yidhi haddii ay Djibouti hubkan qabatay inay sharciga u martay oo ay soo marisay maxkamadaheeda iyo waxa sharciga Djibouti uu ka qabo arrintan. waxa kale oo warar dhinaca amniga ah ay sheegeen inuu socdo baaritaan ku saabsan in dadka uu ku socdo hubkan markii laga qabanayo badda cas ay ahaayeen kuwa ay saaran tahay cunaqabataynta dhinaca hubka ee qaramada midoobay oo ku sugan dalka Yemen.
haddaba waxaan arrinta hubkan kala xiriiray wasaaradda arrimaha gudaha ee jabuuti, wasaaradda amniga ee soomaaliya, xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo dhammaantood ay ii suuro geli weyday inaan ku qanciyo inay ka hadlaan arrintan. waxa kale oo aan la xiriiray afhayeenka wasaaradda amniga ee soomaaliya cabdulcasiis cali ibraahim xildhibaan oo sidoo kalena ah la taliyaha wasaaradda amniga. waxa uu ii sheegay inay dawladdu baadhayso arrintan isla markaana warcad ay ka soo saari doonto. haatanna macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijkii ugu dambeeyey galka baarista ee baxay 19 bishii juun ee aynu soo dhaafnay. barnaamijkaasi galka baarista waxaan ku soo qaatay dil bishii maarso ee sanadkii 1978 loo geystay askar Soomaaliyeed meel u dhow magaalada Garab Case ee duleedka magaalada Jigjiga. barnaamijkaasi waxaan ku waraystay qaar ka mid ah saraakiisha ku sugnayd gobolka Soomaali Galbeed xogna ka hayay dhacdada ama looga warbixiyey. qaybtan labaad ee barnaamijka galka baarista waxaan ku soo qaadanayaa waraysi aan la yeeshay qaar ka mid a askartii ku sugnayd magaalada Jigjiga oo ay ku jiraan kuwa ka badbaaday dhacdadaasi. barnaamijkanina waxa uu dhammaystir u noqonayaa taariikhdii hore ee baxday. waxaa muhiima in la xuso in dhacdadani ay dhacday xilli jahawareer iyo dagaal ay asqayeen ciidamada Soomaalida, waxaana yar xusuusta askarta xilligaasi joogtay badankood sababo dhinaca qoraal la'aanta ah iyo xilligaasi oo aanay suurtagal u ahayn askarta inay wax diiwaan geliyaan xaaladda waddanku ku jira awgeed. axmed maxamed cali waxa uu ka mid ahaa askarta ka badbaaday dilkaasi. waxa uu ahaa gaashaanle ka tirsan guutadii 10aad ee qaybta 12aad ee fadhigeedu uu ahaa magaalada Dhuusamareeb. hase yeeshee xilliga uu dagaalku socday waxa uu howlgalka kaga jiray aagga Shaniile iyo Harawo. markii lagu soo jabiyey dagaalka waxay u soo lugeeyeen axmed maxamed cali iyo ciidankii la socday dhinaca magaalada Jigjiga oo ay soo galeen 10 habeen kadib. subaxdii xigtayna waxaa looga yeeray xerada ciidanka. ciidamo badan oo ah kuwa loo yeeray lama aysan soconin guutadoodii ama ururkoodii, waxayna magaalada Jigjiga ku soo galeen qaab habqan ah. Shaniile iyo Jabuuti inta ka dhacday ciidanka ka soo jabay baanu ahayn ilaa kabeelayaha nin baan soo lugeynay taliskii ugu weynaayo harmukaayl oo qoriga taliska u ahaa waa soo burburo waa la qabsaday. meeshaas lug baanu ku soo galnay habeenkaas anagoo dhowr iyo 10 nin oo iska soo baxay oo hoogin. habeenkii markaanu meeshaan subaxdii mikrafoon baa lala kacay. meesha waxaa isku yimid abkay ciidan waxa la oo habqanaada isku yimid halkaas ciidankii markaa qoryaha waa laga xareeyay. meesha markii la isku tagay waxay ciidan bulshada militara ciidanka bulshada militara markaa dee saraakiil baa wata. anigu kulli saraakiisha hadda ninka kama magacaabo karo nin furmo ku jiray baa. saraakiisha aan hore ugu waraystay barnaamijkan waxay qaarkood ii sheegeen in ciidankaasi lagu soo xulay si khiyaano ah iyada oo loo sheegay in la dalaxsiinayo. hase yeeshee abbaanduulihii kulmiska Jigjiga gaashaanle sare Cabdi Salaad Cali oo goobta dilku ka dhacay joogay waxa uu ii sheegay in tiro lagu soo xulay. axmed maxamed cali oo isna ka mid ahaa askartii goobta joogtay ayaa xaqiijiyey xusuusta gaashaanle sare Cabdi Salaad Cali. ciidanka waa la fariisiyey. markii la fariisiyey waxaa yimid bulshada militari ilaa dhowr gaari. markii ay yimaadeen ciidankii waxaa la yidhi waxaa la rabaa tiraa la qabanayaa. tiradaas kow baa laga dabalaya 30 markay gaadho 30 ninka 31aad baa ka ahaya meeshaasu tagaya halkaasu tagaya. tiradaas leeg baxaysa tiradiisi loo waday dad badan bay noqotay. wadamada meesha fadhiya ma yaha ilaa 5 qof. xero birgeer oo dee ay lahaan jiro birgeer lahaan jiro hore oo xero oo birgeer ayaa la geeyey. xeradii marka waxaan ugu tagnay ciidan kale oo bulshada militari oo ay yareen ilaa 500 oo ciidan oo bulshada militari oo hubeysan xeradii ku gudaaman baan ugu tagnay. xeradii marka aan ugu tagnay waxaa ku qudbeeyay xabaash ina argagixina. ciidanka waa bulshada militari oo amniga iyo ciidan soo kordhiyay. adinku dadkii moraalka waa jabay. ciidankeeni waa soo jabay. moraalkiisi waa xumaaday. waxaa rabnaa marka dad la soo qabto in layna ka dhigo odaha boor in layna ku rogrogo in layna ku rogrogo dadka in layna tuso ama riwaayada iyo xun in layna ka dhigo. qoladii heegan baa imaanaysa. qoladii baa imaanaysa. dadkaas marka waa layna tusiya xoogaha waa layna xiraya boor baa layna ku roya. waxsaasana ku qudbay ma garan si fiican. xoogaha waa la qabsaday. nimankii aad iyo aad baan uga shakinay. markii dambe buuq baa dhacay oo dee waa la arkay meeshaan in nimankaa il cadaawa ka muuqanayso baa la arkay mugta. intaasi kadib haddaba waxaa loo diyaariyey in la toogto. horjoogihii kooxda toogashaduna waxa uu amray in rasaasta la furo. anigu marka halkaa marka meel soreegan ku jiro ilaa la reesameeyaha waan soo dhawaanay. safka horaan soo galay. ashaadan darownay. si fiican baan isku qalbaynay. una akrinayo adduun nimanka tegey baanu isku qalbaynay. waxaasoo hayna dhaaftaanimi
aad baan ugu soo dhawaanay ashaadana waa ku dhawaaqnay tawxiidkaan ku dhawaaqnay halkaa markay marayso baabuurkii baa ka dhex baxday markii baabuurkii ka dhex baxdayna amarkiibuu siiyey annagoo maqayna xabadii u dalbay kufuur buu yiri dadka fura markuu yiri aan ugu bilaabatay dabaashii si cawskiina isheshay waqooyiga u jeednay koonfur bay noo jeedisay anigu markaa waxaan waa dhacay inta kala wareegay baan beerka dhulka saaray ilaa cilmigii nin baa iga dulcay ninkaa iga duldhacaya markaas kulley waxaa umaqabaasoo markaa anigu markaa dambe xoogaa xoogaa adigu soo migisay marka hore dee nin waxaa noqday aakhiro tukaday oo mar dambe aan waxaa naftii ku jiray oo noolahay haddii aan xoogaa jirkeyga taakaasaan u baaraxday dadka xoogaa xanuunaysa marka xanuunkaada ma dareensanin markii cabaar inta hal saaca bidda hadday socotay oo buurta dhakada laisku caysanayo bogeeda laisku caysanayo ninkii waa dalbay militaara xabadda hala joojiyo yiri xabadda hala joojiyo baabuurtana hala fuliyo sidii baa lagu joojiyey way fuuleen ilaahay baa naga dhaqaajiyay guuxoodii markii ay baxeen oo amba baxeen oo guuxoodii waxooday sii rabsadeen baan ninkiiba waxaa arkay oo neeftii iska baxshay inuu nool yahay baa arkay waa waryaa oo xabadna kugu tahay mayi iga kacbaa meeshii markuu iga kacay anigu markaa waxaa arkay anagaan xabad dalb iga tahay baan kolley darteena jibnayn baan maraynaya sibaa musiri hadda wejigiisii weji ahaan iska waa musirin waa dhahaan ciidanka meeshiisi baan ku warnay ciidanka meeshiisii jooga kuwii ciidanka hor joogay baabuurtii kuwii hore keliday raaceen baabuurtoodii way raaceen ciidankii yaacayaan soo galay anigu waxay soo galeen raggii aan saaka la jooxaba meesha la saaray yaa raggii iga soo hormaray halkaa ciidankii raggeygii baa kaxeeyey meesha kritiin laga baxshay askartii balow waa karay buuq baa karay gelood baa laata halkaasaa gadoodka aniga ka dhacay anigu meel un baa la geliyey nimankii nimankaa de waa soo noqonayaan baa layiri gaabtiina kahor way soo noqdeen aniga meel baa lagu qarshay iyada ka hor waa la qarshay gaabtii way soo noqdeen iyo weliba aada u hanjiray oo yiri haddii naari meel qabu male xabadii kaala marray soo galaysa xagga ninka u gudbaana waa xabad oo adalka gaarigii saaxiibadiina saaka layna ka qaaday meesha gaarsiiyin soo cad iyaga waxyaalahaas ku hanjiray gaabtii kusoo noqdeen baa layiri meeshii hadda aniga deaan sogin oo waawacnaa meel laygu qariyey maalinta uu dilku dhacay habeennimadeedii ayaa askartii taqaanay axmed maxamed cali waxay ku soo dhex qariyeen dhaawac laga keenay lafa ciise waxaana la keenay deegaanka gadhyogol oo koonfur kaga beegan magaalada hargeysa muddo kadibna waxaa loo soo dhaadhiciyey magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hase yeeshee caafimaadka lugtiisa oo sii xumaaday darteed waxaa loo gudbiyey magaalada muqdisho marka hore jiirka madhay dee intaasaan meel maray hal daawa ma qaadan waa dhacdhacday bixiraan galay waagoyn waa ka guuday hawr baa keenay xaalbaan alaayi kuli xaal hawshaasna soo dhacday marka askarinimo markiibaa kugu dambeysay askarinimo markiibaa igu dambeysay waxaa intaasoo waxaa dib uguma noqon haddaan mushaara lahaa haddaan abasiri lahaa haddaan wax kasta lahaa dib uguma noqon imise qofaad kaga badbaadeen imisaad dhimatay imisaad ku badbaadeen intaa kolley anigu ninkaa kuu sheegayo waan hubaa waxaad ka badbaaday marka waxay sheegayeen haniinkii niman dhaawac oo qaaday oo meel geeyey oo qasiin waa sheegayeen oo laba nin ninkaa laakiin aniga aan isa saarnay waxba ma qabin dhankiisuu orday wax ma qataa kaa weydiy wax ma qataa ma qabin aniguna markaas dhaawac gaaray dhinaca kale waxaa faahfaahin laga helayaa qaar ka mid a askarta la laayey abuukar gacal cali waxa uu ahaa isbatoore waxa uu ka mid ahaa guutada 15aad ciidanka uu taliyaha u ahaa maxamuud sheekh dulqaad waxa uu abuukar ku sugnaa magaalada boorama xilliga uu dilku dhacayo waxa uu ii sheegay abuukar gacal cali in askarta la laayay maalintaas uu ka mid ahaa askari ay isku mar wada qorteen askarnimada saaxiibkiisna ahaa waxaa ku jira yar suudi dhaga dheere la yidhaah 1976 February ayaa degmada afkuya ciidamada uga soo biiray ninka iga horeeyay suudi dhaga dheere la dhihi jiray ilaahay u naxariisto suudiyaa la dhihi jiray wiilkii iga horeeyay waa lambar 6 oo ah anna lambar 7 ninka 7aan ahay asaguna ninka 6aad u isku ururaan dhaqanay ragga Jabuuti la geeyaan nahay la tababaro hilweyna ka soo wada baxay intaana la bedelay intaasaan soo jirnay ragga la sooco ku jiray oo la laayay suudi ninka aniga iga horeeyay abuukar gacal cali waxa uu intaas ku daray inaanu sheegi karin cidda dhab ahaan amartay dilkaasi waxaa haddaba soo baxaya su'aalo la isweydiin karo baaritaankan uu sameeyey barnaamijka galka baarista waxaa ka soo baxay in askartani aysan ka wada iman urur keliya sidoo kale waxaa suuragal ah in siyaabo badan ay ku yimaadeen goobta lagu toogtay waxaa dhici karta in qaarkood loo sheegay in la dalacsiinayo halka kuwo kale ay yimaadeen goobta iyagoo aan ka warhaynin sababta
ciidankuna waxa uu ahaa ciidan tiro badan waxaana dhici karta in fariinta iyo ujeeddada isu imaatinka aan la wada gaarsiinin ciidanka baaxaddooda iyo ururada kala duwan ay ka tirsan yihiin darteed waxa kaloo wararka qaar ay aaminsan yihiin inay jireen askar cusub oo markaasuuni ka soo baxay tababar oo lagu soo dhex daray ciidamada rigliga ahaa horeyna usii tababarnaa taasina ay sii kordhisay jahawareerka base waxaa ku dhan qaybtii labaad ee barnaamijkii aynu kaga hadlaynay dilkii ugu weynaa ee loo geysta askar soomaaliyeed 1978 waxaa hubaal ah dhegaystayaal in barnaamijkani aanu ka wada jawaabin dhammaan su'aalaha ku saabsan dhacdadaasi hase yeeshee askartii ka badbaaday dhacdadaasi iyo intii goobjoogga ka ahayd ayaan ka sugaynaa inay dhacdadaasi iyo macluumaadkeeda u qoraan jiilka soo